cabdulaahi qosolbiid waa wiil aad u da'yar kuna nool deegaanka xarfo ee hoostaga degmada gaalkacyo oo ah deegaan aan sidaasi u weyneyn. waxa isaga oo ku nool deegaankaasi uu horay ugu guulaystay isku dayo wanaagsan oo ka soo maxday maskaxdiisa, taas oo uu ku sameeyay diyaarado isugu jira farsamooyin kala duwan. balse cabdulaahi fikradiisii iyo isku daygiisii kama uusan harin ee waxa uu ka sii waday halkiisii, isagoona haatan soo bandhigay farsamooyin cusub kala duwan kuwa uu ku sameeyay diyaarado noocyo kala duwan isugu jira. cabdulaahi qosolbiid sida aad arkaysaan waxa uu haatan farsameeyay diyaarado gacan ku samaysa oo isugu jira kuwa duulaya kuwa soconaya. taasina waa mid muujinaysa dadaalka maskaxeed ee wiilkan yar oo ah mid ku dayasho iyo dhiirigelin mudan. haddaba su-aasha isweydiinta mudani waxay tahay sidee ugu suurto gashay wiilkan yar samaynta diyaaradahani, muddo intee leeg ayayse ku qaadatay? waa kan cabdulaahi oo inoo sharaxaya qaabka uu sameeyey iyo dhibaatada uu ka soo maray. diyaaradii ugu horeysay aan ku guulaystay inaan keeno naqshadeeda iyo faraaryadeeda waxay ahayd diyaaradii ugu horeysay aan soo bandhigo. diyaaradaasoo nooceeda ahaa Airbus Air 415, diyaaradaasoo ku shaqeynaysa xantaarta yararka ama sida u taqaaniin babatariyaasha. iminka waxaa soo bandhigayaa diyaaradaasoo ka duwan diyaaradii hore, diyaaradaasoo ku shaqeyn doona samaayada qulqulasa ee korontada. diyaaradda aan u jeedaan waa diyaarad aan ka soo naqshad qaatay diyaaradaha lagu farsameeyo dalka Turkiga. diyaaradaasoo markeedii ugu horeysay soo bandhigo, diyaaradaasoo nooceedu yahay Bayraktar TB2, diyaaradaasoo ku shaqeysa maayada qulqulasa ee korontada ama electromagnetismka. diyaaradaasoo nooceedu yahay Bayraktar TB2 markeedii ugu horeysay aan ka soo naqshad qaatay. waxaa ogahay khibradeeda ay leedahay iyo nooca cimilo ay ku shaqeyso. diyaaradda aan u jeedaan waxaan ka soo naqshad qaatay diyaaradaha sidoo kale lagu sameeyo dalka Turkiga. diyaaradaasoo nooceedu yahay MiG F-17, diyaaradaasoo aan nooca militariga ee qumaatiga u kaca markay howlgelayaan. diyaaradaasoo ku shaqeynaysa maadada loo yaqaan DC-ga. waxaan kaloo soo bandhigayaa aaladda aan u jeedaan, aaladaasoo magaceedu yahay resistance ama caabiye. markii korontada dabka la geliyo oo loo isticmaalayo diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo diyaaradaha sida Bayraktar oo kale, iyo diyaaradda nooceedu yahay Airbus Air 415 loo isticmaalaya ayaa dabka laga xijiyaa. dabka haddii uu qumaatiga ugu soo dhaco diyaaradda injiinkeedu waa uu gubanaya, laakiin resistance-ga waxaa ku xiran bir yar oo loo yaqaano cover. resistance-ga waxaa ku xiran dareemayaashaasoo sheegaya in dabka quality badan hadduu ku soo dhaco in uu shidmayo leer ka mida leerarka aan ugu talagalay. cabdulaahi ayaa sidoo kale mar la weydiiyey damiciisa ku aadan sii wadidda iyo sare u qaadista farsamadiisa. waxa uu ku jawaabay sidan: iyagoo ku nool dunida oo idil waxay dalkeena Soomaaliya ka aaminsan yihiin inuu yahay dal ku jira dunida saddexaad oo dama, laakiin waxaan insha Allah rajaynayaa in aan noqon doono ninkii ka saari lahaa mugdiga oo saari lahaa iftiinka. laakiin caqabadii koowaad aan kala kulmo waxay noqotay qalab la'aanta wadanka ku baahsan, taasoo igu noqotay caqabadan dhaafi waayay. laakiin halka bariga kuma sii qaban doono. waxaan rajaynayaa inaan kicin doono satellite ama sida u taqaaniin madax gacmeed. dhalinyarada Soomaaliyeed qaarkood waa kuwa leh hal abuur dhaxal u noqon kara dalka haddii ay helaan garab istaag, maadaama cabdulaahi ee ku nool deegaan aan sidaasi u weyneyn uu farsameeyay diyaarado gacan ku samaysa islamarkaana u muuqda kuwa macquul ah. isku soo wada duubo, isku dayga wanaagsani waa mid laga guul gaaro haddii aan laga daalin. taasina waxaa tusaale inoogu filan wiilkan aadka u da'yar ee weliba ku nool deegaan aan sidaasi u weyneyn. cabdirasaaq maxamed axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, gaalkacyo.